kulanti wacan daawadayaal halkani waa telefishinka SDN qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah banaanbax lagu diidan yahay ciidanka Kenya ayaa maanta ka dhacay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka internetka uga qayb galay khudbadna ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubiridka arrimaha bini'aadamnimada waxa ay sheegtay in 60,000 oo Soomaali ah bishii la soo dhaafay ku barakaceen gudaha dalka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudugna waxa lagu qabtay waxyaabaha maanka dooriyay iyadoo saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug ay arintaasi ka hadleen dalada ay ku mideysan yihiin dugsiyada Quraanka iyo macaahidda diiniga ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho ciidanka Jubbaland waxa ay magaalada Kismaayo duleedkeeda ku soo bandhigeen miinooyin ay sheegeen inay halkaasi ku aaseen dhaqdhaqaaqa al-shabaab intaasi waxa ay hayeen daawadayaal qodobadii warka ugu door corona haatana iyagii oo faahfaahsan banaanbax lagaga soo horjeedo dilka ay ciidanka Kenya u geysteen dad rayid ah ayaa maanta ka dhacay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ciidanka dawladda Kenya ayaa shalay ka soo talaabay xadka iyaga oo qof Soomaaliya ku dilay magaaladaasi saddex kalena afduubtay oo lana gudbay dhinaca dalkooda Maxamed Yuusuf Shaaciye ayaa faahfaahinaya warkan saaka ayaa waxaa banaanbax ka bilowday degmada Ceelwaaq banaanbaxan ayaa ahaa mid ay isugu soo baxeen dad aad u badan waxaana banaanbaxan keenay kadib markii ay ciidamada Kenya weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen tuulo 25 kiiloomitir u jirta degmada Ceelwaaq ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay wateen gawaarida nooca militariga waxaana goobtan lagu dilay marxuun Cabdullaahi Warsame Abeyle oo ahaa wiil dhalinyaro ah waxaana isla goobtaasi lagu afduubtay saddex qof oo rag ah oo ay ku jiray aabaha dhalay wiilka la dilay ciidamada Kenya ayaa goobta uu weerarka ka dhacay hore ugu sii qaadeen meydka marxuun Cabdullaahi Warsame Abeyle kaas oo ay ku duugeen god ku yaala meel 10 kiiloomitir gudaha u ah xuduudda Kenya shalay ayaa laga soo qaaday ama laga soo bixiyay goobtaas waxaana rag dhalinyaro ah ay ka soo bixiyeen goobtii ay ku duugeen ciidamada Kenya kuwaas oo dabagal ku sameeyay isla markaana xalayta soo gaarsiiyay degmada Ceelwaaq waa arin cusub noqotay oo dadkaan la laynayo oo masaakiintii guryaha ku jirtay la dilayo dadka anaga waa ka meydka nagi eber baa laga dhigay farmaajo gurigiisa inagaba guri kala wax ma tan gurigaaba laga saagaan wasaabali baabaaday Soomaali Ceelwaaq waa baabaaday dawladda Kenya dawlad ma hanbaleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad mid dalka u soo duushay waa iyaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn ku duugan madaxa hore u duugan lagu banaanka u soo bixiyeen wiilashaanadu waa ka dhintay talbeeli waaye magacaygu waa Axmed Xasan Cabdullaahi waxaan sheegaynaa oon cadaynaynaa wax cadaynka dhana weeye ninka hadda hortanada yaala oo meydka ah Cabdullaahi Warsame Abeyle weeye aabihii wuu maqan yahay laba nin oo kale aan maqan waa wiilkii curudka ahaa waxa hadda meydkiisa aan kor taagannahay ilaahay baa qadaray inna lillaah وإنا إليه راجعون الدنوينها أما جارهان ومدة مسلمك جارهان ومدة الصوماليات وحن أقيسينينا أفر إلا بطنك الساعة دولة كينيا دولة ما هنبلاي هاي سيدي دبر وحاوي وبرعت مدة دالك وسودوشي وأيجا ضد الكوضية الدين توضية إسلامي بضي في عنت هاي بانهين وحاوي دولة كينيا لقوش يجا هيو وحين قوة دائنا يدات كنجا يبسط اللاين ويكبح ضي بدي برهبا وضدنا يا شيء dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haday ayaga nagu wareejiyeen oo inoo soo direen oo inay yiraahdeen laaya hano cadeeyna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ninka isku sheegay la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihiisa wasiirada haday dal iyo dibad mid bay ka soo ay joogaan waxaan u sheegaynaa wixii yaala waxay indhaha ku hayaan weeye Falastiin waan ka darannahay waadna arkaysaan gumaad aan geedan noogula gabanin baa habeenay maalin lagu hayaa arag goosan ah oo dhurwa uu galay baan nahay inta dambana haddaan laga soo gaarin way dabatiraysaa cadaynayna oo caalam muslim aan u bandhigno meedkaas u keenay Allah u naxariista Cabdullaahi Warsame Abeyle waxaan u keenay halkaas cadayn islaamka caalam muslim in la arko waxa dishay ciidamada Kenya oo si bareeracad oo kas u dishay on kama ahayn marxuunkaas ilaahay baa og annagana waan ognahay siyaasad ma gelin Allah u naxariista
waa nin dhallinyaro oo 20 jir oo xoolo jir oo tuulada iyadoo degan oon cadaynayna oo ilaahayna ogeey ummadana og tahay dhagta waa beriga daraa subaxay tuulada weerartay xabadda u horeysay waxay ku dhacday Cabdullaahi Warsamo Abayl aabihiis iyo 2 nin oo kale oo dhallinyarana waa afduubatay oo ayadoo jijibisay oo garbaduub u xirtay la tagtay 3 gaari ayna wateen waa ciidamada DF oo Kenya waa cadayn meedkan waxaan ka soo qaadnay 10 kiiloomitir meel u jirta gudaha Kenya oo jidka Alangoo marka lagu baxo meesha la yiraahdo xuduudka Kenya 10 kiiloomitir meesha la yiraahdo Liverpool ka soo qaadnay aad ogtihiin oo ayaga oo mooto iska saaran oo xamaalata ay u dileen kuwa kale masaakiin oo shanjir ay naga dileen hadda koor waa ogtihiin buusaar waa ogtihiin maalin walba faafadhuun toban ay maalin dileen waxa weeyaan waana banaysatay inaan jahaadna shirkadii hormuud ku ay ku dileen waa ogtihiin oo barxadan soo dhigaynay inaan jahaadna la dirno waxaanayna noo bannaan male aniga waxaa la yidhaahdaa dhaqana abayla cilmi wiilka dhintaan adeer u ahay 2016 waxay dileen wiil aniga aan dhalay gaalada ku disha buusaan haddana shalay oo taariikhda 23 bishii sagaalaad wiilka adeer u ahay dileen kii ila dhashay wiilka dhalayna waa la tagay waana dileen oo marayna xasuuqa waa socdaa marka wax beesha looga talagalay sidoo dagaalku u dhacay العدا وحسوق هرجع تقول قالين كل حسوق بدو صومالي أو بيش قبل كجد دكتة ومغليسة بيتك وكاف بيتك وكاف فرماشة هل قبطي قرقي سنك وقرقي كلا وحمد أنا قرقي أبا لقى ساقان ورقى ساقان وسامالي بابا ذي سامالي علق وبابا ذي تيجي وبابا ذي العدا الله أرسل هيا العدا ما شعب كان قلي شعب الشباب أنا لك دي كل هيا بس أنا نقول لا يا وين أبيله أبي وين سال شاق شيري أبي سال معنا أبي ولا تيجي أصلا ولا تيجي أنا هم عوالي ما بحاجة كمان تبين هايو ورنا سانجار ورنا حرب عصاك ورعينا بلا كايا بلا سارة ورعينا بلا قدك كوشر وأباركا وحبتني وأنا حبت المقصارية بالله الله يركض وين في نايا وقدك كوشر وأكون تري مهيا ما يبحث يا نقول دليل ولا اللي يرادو يدو هذا كل جيس ما مقنع صدق قفوا كلام مقن ninka midka ana shalay galabtii ayaa la soo helay shalay galabtii baa la soo helay 3 qof oo kalena waa maqay dawladda Kenya waa la wadaagnay cidii geysatayna waa u sheegnay waxaan la kulannay shalay madaxdii degmada alwa Kenya ayagoo dhan ama military ha noqdo ama maamul ha noqdo antaba waa la kulannay waxaan u sheegnay si dadka loo laayay dadna in la laayay dadna ay maqan yihiin inay dhinteen kala aan warweynin oo dadka saas yeelayna ay yihiin ciidamada Kenya waxaan niri si degdeg ah jawaab aan idin helo waxay noo sheegeen inay haddii Ilaahay idmo oo ninkii DC-ga ahaa oo meesha joogay wuxuu yiri nimanka salaakiishii aniga ayaa isweydiinayno wixii xawaareedana waa idin la soo wadaagaynaa sidaas darteed markaas saasna yiraahdeen waan ka soo noqonay bulshadii baan la wadaagnay wixii aan la kulannay ayaan u sheegnay haddana shalay galabtii waxaana la soo gaarsiiyay ninkii meedka ah in la helay shacabka isugu soo baxay banaanbaxan ayaa aad uga hadlay arintan argagaxa iyo mucjisada agtooda kale waxayna sheegeen in ay dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ay ka codsanayaan garab istaaga si wax looga qabto arintan naxdinta iyo argagaxa leh madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka internetka uga qayb galay shirweynaha 75aad ee qaramada midoobay isagoo khudbad ka jeediyay khudbadiisa ayuu kaga hadlay waxyaabaha u qabsoomay dawladdiisa iyo sida ay doorashooyinka dalka uga dhacayaan iyadoo cudurka corona saameyntiisuna uu sidoo kale ka hadlay Cabdiqani Axmed Abtidoon ayaa faahfaahinay warkan
madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay meertada 75aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka warbixiyay horumarada dowladdu ay ku xaqiijisay amniga iyo siyaasadda saameynta cudurka safmarka ee corona iyo caqabadaha dhaqaale ee uu sababay. madaxweynaha ayaa dul istaagay qorshaha dowladda ee hirgelinta qorshe hufan oo sii xoojinaya dimuqraadiyadda iyo daahfurnaanta siyaasadeed ee dalka, waxaana tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay ku tilmaaman yihiin isu tanaasul iyo isqancin oo faro u ah xasilooni siyaasadeed, midnimo iyo wadajir. ugu dambeyntii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hogaamiyayaasha dalalka caalamka kula dardaarmay in mudnaanta la siiyo xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee ku aadan caqabadaha iyo dhibaato wadareedka ka taagan dunida si looga faa'iideysto fursad kasta oo lagu gaari karo duni nabdoon horumarsan oo barwaaqo ah. In this regard, we in Somalia reaffirm our commitment to multilateralism to overcome all common obstacles and to capitalize on every opportunity to create a better, safer and equal world. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubridka arrimaha bini'aadanimada ee UNOCHA ayaa sheegtay in ku dhawaad 60,000 oo qof oo Soomaali ah ay ku barakaceen dalka gudihiisa bishii Agost ee la soo dhaafay. hay-adaha ka shaqeeya arrimaha barakacayaasha ayaa sheegay in bishii Agost ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya ku barakaceen ilaa 60,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubridka arrimaha bini'aadanimada ayaa sheegtay in dadkaasi ay barakaceen abaaraha, khilaafaadka iyo fatahaadaha ka jira Soomaaliya. warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubridka arrimaha bini'aadamka ee UNOCHA loo yaqaano ayaa lagu sheegay in 43,000 oo kamid ah dadkaasi ay ka barakaceen fatahaada webiga Shabeelle oo ka geystay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, halka amni darrada ka jirta gobolkaasi ay ku barakaceen 7,000 oo qof. sidoo kalena hay-addu waxa ay sheegtay in 8,000 oo qof oo kamid ah dadkaasi ay ka barakaceen abaaraha ka jira Soomaaliya. hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO loo soo gaabiyo ayaa iyana sheegtay in 650,000 oo Soomaali ah ay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii January ee sanadkan 2020, kuwaas oo ay saameeyeen fatahaadaha webiyada dalka ay ka sameeyeen. ciidamada amniga magaalada Gaalkacyo ayaa gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka dooriya kadib howlgallo ay ka sameeyeen halkaasi. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug oo ka mid yahay wasiirka amniga maamulkaasi ayaa ka hadlay goobtii lagu gubayay qamriga iyo waxyaabaha maanka dooriya ee ciidanka amniga Galmudug ay ku soo qabteen koonfurta magaalada Gaalkacyo. waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulkaasi oo ka hadlaya. dadweynaha degmada Gaalkacyo Galmudug waxay naga gacan siiyeen inaan gacanta ku soo dhigno waxaan wada shaqayn ka dhaxaysa bulshada iyo booliiska oo markastaba bulshada Gaalkacyo u taagan markastaba inay siiyaan farmashinada aan ku helayno waxyaalaha noocan ah. aad baan ugu mahad celinayaa. waxa warbixin ugu soo gaartay habeen waqti dambaydo ay tahay in la dejinayo bahashan oo lagu dejinayo guri kamid ah magaalada Gaalkacyo. dadweynaha oo diyaarsanaa inay ilaashadaan dhulkooda iyo ciidanka oo diyaarsanaa inay gacanta ku soo dhigaan waxyaalaha noocan ah. kadib markii aan ka howlgalnay waxa noo suurta gashay inaan gacanta ku dhigno waxyaalaha noocan ah. gudoomiyaha gobolka Mudug iyo duqa degmada Gaalkacyo ayaa iyaguna uga mahad celiyay ciidanka booliiska federaalka ee Galmudug ee gobolka Mudug tallaabooyinka ku aadan la dagaalanka ganacsiga maandooriyaha qamriga iyagoona bogaadiyay. ciidanka booliiska ugu mahad celinayna dhibaato intaan la eg oo deegaankii laga badbaadiyay waxaanay dadkana geli lahaayeen waxa kufsiga iyo dilka iyo dhaca keenaya wadaraaga intaan la eg oo deegaanka soo galaya maalin walba. ciidanka booliiska gobolka Mudug oo runtii dadaal dheer u sameeyay oo aan ahayn markii koowaad markii labaad aan ahayn in badan oo daraagaysa qabtay dad badan oo dalka gudihiisa wantadka qabtay. waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin. Mudug howlihii caadiga ahaana la hayo in haddana lagu sii daro in daraagiskan iyo maandooriyahan tirada badan oo runtii yani dhibaatada u geysan lahaa ay muuqato. yani inta qof oo inta ku saamowda daraagiskan ama qamrigan cabta dhibaato bulshada u geysan lahayd waa la qiyaasi karaa intay leeyihiin. waxaan rabnaa kol dhow in howlgal qorshaysan uu degmada Hobyo ka dhaco oo arintaas iyo arinta dhulka boobka ku saabsan. intaasoo hadda kool ayaa igu soo dhacaysa oo leeyahay dhulkii dawladda iyo kuwa kale oo dhul shacab
degmada Hobyo waa la isku haystaa ama waa la dhisanayaa marka arinta degmada Hobyo waxa weeye shaqooyin badan baa ka bilowmi doona waana magaalo muhiim noo ah marka taliska qaybta waxaan runtii ku baraarujinayaa in halkaas qayb ka mid ah loo waciyo ciidamada amniga maamulka Jubbaland ayaa miinooyin ka saaray wadada isku xirta deegaanada Gooboyn iyo Ntooy ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa sheegay in miinooyin ka saareen wadada xiriirisa deegaanada Gooboyn iyo Ntooy ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha hay'adaha amniga Jubbaland ayaa xusay in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad aasayay miinooyinkaas ay intaas ku dareen in dadka loo soo qabtay falkaasi ay baaritaano ku hayaan isla markaana dhawaan la horgeynayo hay'adaha garsoorka ee maamulka Jubbaland. saraakiisha amniga Jubbaland ayaa soo bandhigay miinooyinka ay sheegeen inay ka saareen wadada xiriirisa deegaanada Ntooy iyo Gooboyn. ciidamada amniga Jubbaland ee jooga duleedka Kismaayo ayaa sheegay inay baaris ku hayaan ciidamada amniga Jubbaland ee jooga duleedka magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay fulinayaan howlgalo ka dhanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku sugan gobolkaasi. dalada ay ku midaysan yihiin dugsiyada quraanka iyo macaahidda diiniga ah ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Yuusuf Shaaciye. waxaa laga furay magaalada Muqdisho dalada Sanaabil oo ka shaqeyn doonta macaahidda diinta taas oo noqotay in ujeedkeedu yahay isku xirka quraanka iyo macaahidda diinta. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socota jaamacadaha macaahidda iyo daladaha. waxaa xafladda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dalada Sanaabil Sheekh Saadaan Bishaar Maxamed asigoo oo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay furitaan حفلة. نحن سعداء بحضوركم فأهلا بكم عطرا فواحا ينتثر شذاه في كل الأرجاء وأهلا بكم عطرا راقيا ويطيب خاطركم martideena sharafta badan xafladeena ayaa noo furmi doonto biidinilaahi alkariim. sidoo kale waxaa xafladda goobta ka hadlay maamulaha guud ee Markas Daarul Xadiis Dr. Sheekh Xasan Macalin Daawud asigoo oo baraarujiyay barashada diinta iyo culumta la xiriidha. wuxuu marka qofku u baahanayaa quraanka hadduu xifdiyo meelo uu ka barto tafsiirkii iyo xadiidkii iyo fiqhigii iyo culumtii sharciga ahayd ee ku saacidaysay quraanka macnihiisa inuu barto. arrinta marka raabitadu ay u istaagtay ee ah quraanka barashadiisii iyo qaabkii dadka loo baray in la hormariyo iyo in la isku xiro qofku meeshii uu ka baran lahaa culumta sharciga ah iyo dugsiyadii quraanka ahayd waa arrin muhiim ah oo asaasi ah waana meesha ummaddu ay ka hormari karto oo bulshadu cilmigii saxda ahaa ee asaaska ah ay ka baran karto nolosheedana dariiqii saxda ah ay ku hagi karto marka taa ay barato. Allah subxaanahu wa ta'ala manhajkii uu ugu talagalay koonkan in lagu dhaqana qofku uu ku fahmi karo. marka dhammaanteen waan soo dhaweynaynaa waan u ducaynaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala juhdiga inuu la garab galo. Allah subxaanahu wa ta'ala dhammaanteen khayrkana waafajiyo. waxaa kaloo goobta ka hadlay maamulka ku-xigeenka jaamacadul carabiya Ustaad Maxamed Cusmaan Geedi asigoo oo tala siiyay mas'uuliyiinta waaxda waxbarashada culumta diinta. waxaan soo dhaweynaynaa ka al-jaamacada alcarabiya raabidada Sanaabil waa soo dhaweynaynaa waxaana leenahay baahi ayaa loo qabaa raabidadan iyo raabidooyinka lamid ah maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay toosin waxay u baahan tahay wax badan oo suluukiyaadkeeda dhaqamaadkeeda kamid ah in la toosiyo wax lagu toosin karana waxa ugu muhiimsan waa tacliin. tacliintaasna waxay u baahan tahay dad maamula oo haga ay u baahan tahay marka raabidooyinka waxay ka shaqeynayaan tacliintaas hagideeda iyo horumarinteeda marka baahi loo qabay ayay haddana raabidooyinku way kala muhiimsan yihiin raabidooyin tacliimi oo ka shaqeeya waxbarashada macaahidda shareecada waxbarashada quraanka kariimka horumarinta macallimiinta waa baahi taagan waay laana maxaa yeelay anaga qof dadka muslimiinta bulshada muslimiinta ah inuu dhalaankooda markuu bilaabo inuu wax barto waxa ugu horeeyo oo lagu bilaabo inuu barto waa quraanka kariimka ah waa marka muasasad noo maamula oo noo horumariya baahi ayaa loo qabay marka Sanaabil waxaan leenahay ku soo dhawaada saaxada ka shaqeynta waxbarashada iyo horumarinta tacliinta ka jaamacad ahaana dadkan soo dhaweynaya oo garab istaagan ayaan ka mid nahay. dalada Sanaabil ayaa ka shaqeyn doonta sar u qaadida diinta iyo culumta la xiriidha. halka warkaasi kala socotaana waa telefishinka SDN xaruntiisa Muqdisho. markana warka dibadda madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Maali ayaa lagu wadaa in la dhaariyo iyada oo ay soo magacaabeen
militariga dhowaan afgembiga kula wareegay dalkaasi. munaasabadda dhaarinta ayaa ku soo aadaysa 5 toddobaad kadib afgembigii dalkaasi ay militariga kula wareegeen. madaxweynaha la dhaarinayo ayaa waxa uu horey u ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalkaasi, hase ahaatee waxaa shaqada ka eriyey madaxweynihii dalkaasi ee la afgembiyey Ibrahim Abubakar Keita. ururka midowga Afrika ayaa cunaqabateyn ku soo rogay dalka Mali kadib markii militarigu ay afgembiyeen madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Abubakar Keita, taas oo lagu wada in hadda dib looga qaado. warkii ood kala socoteen telefishinka SDN waa inaga intaa. nabadgelyo.